maayarka degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo xildhibaanada golaha deegaanka xoghayaha fulinta dowladda hoose ee Gabiley ayaa munaasabad ay ku hambalyeeyeen musharaxnimada Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku qabtay xafiiska dowladda hoose ee Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan maanta halkan hambalyo iyo ducaba uga diranaa anaga golihii deegaanka degmada Gabiley madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo aan ku hambalyeynano go'aanka taariikhiga ee dhaxalgalka ah ee uu shalay toole kaga dhawaaqay shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u hambalyeynaa madaxweynaha runtii waa arrin taariikhiya oo u huba oo magac iyo sharafba u ah dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo ay kaga duwan yihiin shacabweynaha ku nool qaaradda Afrika waa madaxweyne ku suntan halganka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku suntan horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland maantana ku suntan oo waxa weey go'aan taariikhiya ka qaatay inuu isagoo xaq u leh oo awoodi karaya inuu tartamo ka tanaasulo isagoo chance siinaya asxaabtiisii siyaasadeed ay muddada dheer halganka ku soo wada jireen go'aan ku gaaray in aanu tartamin taasina ay tahay arrin taariikhi oo halganka dimuqraadiyadeed ee dalkani ku jiro taariikh dahab oo ka gelayo waxaanu ku noolahay dalka Afrika oo ay ku yar yihiin madaxweynayaasha sida xorta loo soo doorto oo ay aad iyo aad ugu yar yihiin madaxweyne ayar xilka iskaga dega Nelson Mandela baynu haynay qarankan Afrika madaxweynaha Soomaaliland maanta uu ku labeeyay aad baan runtii ugu hambalyeynaa waa guul iyo gobonimo uu dhammaan u soo hooyay shacabka reer Soomaaliland iyo ummadda Afrikaba sidoo kale waxaan jeclahay inaan hambalyeyno golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo qabsaday doorasho xor iyo xalaal ah oo si hufnaan iyo xaliibnaan ku jirto u kala saaray musharaxiintii ku tartamayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aad baan hambalyo ugu diranaa dhammaan xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaan sidoo kale hambalyeynaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga uu soo saaray Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo u ducaynano inuu Ilaahay mas'uuliyadda ayuu garteen walaalahooda xisbiga kula jira inuu ku guuleeyo aad baan u hambalyeynaa waxa xusid mudan Dr. Saleebaan Xagle Toosiye wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo kamid ahaa xubnihii u tartamayay madaxweyne ku-xigeenka oo si xilkasnimo leh u tartamay firfircooni badan muujiyay isla markaana si sharaf iyo qadarin ku jirto ugu qancay go'aankii isagoo eegaya ujeedada ka weyn tan ee ah jiritaanka Soomaaliland midnimada Soomaaliland iyo wada jirka ummadda reer Soomaaliland aad baan u hambalyeynaa dhamaantood waxaan Ilaahay ka rajaynayaa insha Allah inuu inagu nooleeyo guul iyo gobonimo Soomaaliland u fudaydiyo waxaynu hiigsanano inagoo gacmaha haysana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo oo maanta isagoo ahayd in teramkiisii labaad ee dastuurku siiyay oo u tartamo shaqada madaxweynenimada ka doorbiday danta guud ee ummadda isaguna uga tanaasulay in ay tartamaan dadkii kale ee xisbiga kula jiray anay soo baxado cidii u noqon lahayd madaxweynaha una tanaasulay waxaan leeyahay waa guul iyo magac aan weligiiba ka hadhaynin oo saarnaanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna noqday Nelson Mandela labaad ee Afrika tiyo Afrika oo dhan uu ka horeeyay Nelson Mandela oo kaliya oo isagu hal teeran kaga tanaasulay madaxweynenimadii maantana uu Siilayo noqday kii labaad iyo taariikhda uu kaga tagay Soomaaliland maanta iyo maalintii uu bilaabay heerka ay taagneed iyo maanta heerka ay marayso حزب الحاكم حزب الوينها kulmiye sida sharafta leh ee quruxda leh ee nabadgelyada leh ee dulqaadku ku jiro gobonimadu ku jirtay sharaftu ku jirto maanta shirkii u dhacay ay doorashadiina u dhacday
kolley dadku way tartamaan saaxiibkaabaa guulaysta saaxiibkaana uu ku guuldaraystaa sida sharafta la isku barbar istaageen maantana waa saaxiibkaa berrina waa saaxiibkaa waxaan leeyahay waxaan ku hambalyeynaa sida nabadgelyada ay u dhacday doorashadii xisbiga kulmiye raxiim maanta waxaanu hambalyeynaynaa horta marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan waxaan u diraynaa hambalyo sidii wanaagsaneyd ee uga tanaasulay musharaxnimadii uu lahaa ee xaq u lahaa marka labaadna waxaanu hambalyeynaa horta idii ku guuleysatay waa Muuse Biixi isagana waxaan leenahay hambalyeynaa mar haday kulmiye maanta soo saareen Muuse inuu nala tartamo waxaan leeyahay waan hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa tartan wanaagsan nala galbaan leenahay waana ku hambalyeynaa guusha u gaaray intaasaan kusoo koobaya hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Xamuud Siraayo oo run ahaantii maanta jeexay waxa weeyaan taariikh ku cusub oo ku ugu geeskan Afrika waxa weeye dhanka kale cuqaasha waxgaradka salaadiinta haweenweynaha gobolka Gabiley ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray labada musharax ee ku guuleystay tartankii xisbiga kulmiye waxaana hadaladoodii kamid ahaa iyo bogaadin uga diro halyeyga Soomaaliland aabaha dimuqraadiyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo kolka marka labaad inaan u duceeyo musharaxiinta abtiga iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic iyo Mujaahid Muuse Biixi Cabdi maanta waa mahadnaq weyn iyo wixii waana ee qof ku darayo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo halyeygii halganka horta waxa weeyaan weyn ku naqaanay geesnimadan oo waxaad xasuusanaysaa markaynu meelaha qaar joognay ee ilaa dhalinyaradii lahayd u dhacaysiyaan Siraayo dhalay muuse wax walba xagga Ilaahay bay ka dhacaan waa nin soo samray oo soo dadaalay oo soo shaqeeyay oo mudnaa in la doorto wuu inaga mudan yahay kar baa dhacay laakiin hawli way dambaysaa yaynaan haddii ay niyadii naga tahay iyo daacadnimo taageeridda aynu halkaas saaka isugu nimid hawli way dambaysaa maalinta warqadda lagu ridanayo yaa layna waayin ayaan ku hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee jeexay dariiq aanu hore aynan u arag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ku salaamayno qortaankii shalay fadhigii golaha wakiilada golaha أنت وحي الله قدري شركي أدمر عندي جو مدحوينها جمهورية Soomaaliland oo markii ugu horeysay madaxweynaha Afrikaana oo sameeyay marka Mandela lagu daro hab dimuqraadi isagoo tarankiisii labaad u harsan yahay u haneeyay walaalkiisii gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic kalfadhigii golaha go'aamadii xisbigu waa guulan taageerayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo innagaa dooranay waa codkeennii waa camalkeennii kumanaynu khasaarin oo waxa khasaaraa maanta kama sheeganayno 25kii qodob uu shalay ka sheegay shirweynaha 22kii qodob 22ka qodobba way cad yihiin oo lagaga masuugi maayo niman de habeena kaga dhicin indhaha mooyaane iyo qalbiga ninka habeena wama yacshu an dikri raxmaan bi ilaahay ninka kaga dhacay ka shaytaan baa taabtay ilaahay ninka indhaha habeena kaga dhacay dikriga ilaahay garan waayay marka ninkan siyeelay ama aanay habeena ku dhicin wuu og yahay 22kii qodob ee uu ka hadlay shalay inay 22 kubay noo qabsoomeen waxa dalka soo maray 4 madaxweyne intii dhimatay Allah u naxariisto intii nool Allah u gargaaro mid waliba halku inaga soo qaaday iyo halku inaga tagay waa la wada ogsoon yahay 5 sanadood buu dalka joogay
shantii sannadoodna 22 qodob inoo sheegay baa inoo fulay inoona hirgalay Allah inoo shifeeyo allana hayna oo aad iyo aad isaguna sharaf u mudan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan halkan maanta isugu nimid hambalyo qaali ah oo badan marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa oo ka hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisa qaaliga ah ee hooyadii dalka ah Aamina Maxamed Sheekh Maxamed Tirdi ayaan halkan ka salaamayaa salaan qaali ah hawada u marinaya marka labaad halkan waxaan ka hambalyeynaa maanta oo halkan ka salaamaynaa مجاهد موسى بيحي عبدي الله دورتي مدحوينها مستقبلك إلا بدأ كون يتضبط كترتمي دولة دلك إيا مدحوينه كحجها يسوون أشرحن عبد الرحمن إسماعيل سيلعي لما أنت هذا كنا نكهم بلييننا وحنو لنا هالرنهانتي سمراسات كي هلا واد سمرتي إن بدن بعضو سمرتي وحنو إلهينا كاجر رجينا سدا قليه دحايكو عديين Somaliland لما أنت هذه يضع معها يسيستنا إن العد كذا كسينا صا عدنا قنطن عدنا قنطن تنا مدحوينها وطن كسوماليلاند معمولة مركوا نكسور دويننا موسى بيحي عبدي إياه عبد الرحمن إسماعيل سيلعي أنه سور دويننا أنه همبلييننا وحكى لهم سلام إياه همبليها لكن مرينا قاله قيمها لها سيدا شرفت له حل كسنمة له بوغليد يربشد ليدو أي وقعد عضي دور الشدة حرية حلاشة دعمها اللي سيستي سيدا كل ماتي وحنا لكن كسلام إياه مشرحي إسنا وشرحنا مدحوينه كحجة حقله توصية وسير كعافماتك أديكنا وأنكم همبلييننا ودائرت هاي إن شاء الله أديكنا والله بدوران دونا هدي لها النية جبن هدالين هحيقن هعران هدودن وأنو كسور دويننا أديكنا وسير هل كنا ما أنت همبليada qaaliga waxaan u qadiraynaa Muuse Biix Cabdi iyo Cabdi Raxmaan Ismaaciil Saylici oo ku soo dhaweynayno goboladoodii wadankoodii Soomaaliland bari ilaa min galbeed iyagoo gacmaha haysto codka idin la diyaara 2007 markay doorashadu dhacaysay diilaayna assalaamu calaykum ay huntii reegibilay qalbiga sidii looga yaqaanay taageerada sidii looga yaqaanay isku duubnaantii reegibilay ay ku midaysan yihiin ee lagu taageerayo horta lan ku hambalyeeyna madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan geesinimada lahayd ee uga qaatay go'aamadii arrimihii soo maray sidii geesinimada loo uga qaatay ayaan horta madaxweynaha aad ugu hambalyeynayna waxa kale halkan maanta isku soo taagnay oo la isku yimid in la taageero la musharaxa madaxweynaha Somaliland noqon doona Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka oo asna Cabdi Raxmaan Saylici reejabilay hadaan nahay waxa la nagu yaqaanay jabilay waa kulmiye xusbiga kulmiye waanu isnaqaanaa maanta isma baranayno dhiig baanu shubnay dhuuxna waanu ururnay hadaan reejabilay nahay maantana ta soo socotana maskaxdaanu maroojin doonaa hadaan tii hore dhuuxii dhiig Farxaan Cabdi Qodaal News Gabiley